Aaraha Somaliland ka jira ayaa noqday kuwa saameeya dadka iyo xoolaha gaar ahaan bariga Somaliland iyadoo dadka aanay haysan biyo iyo baad sidoo kale aanay helin dadkaasi goobo caafimaad oo lagu xanaaneeyo caruurta iyo haweenka la liita xanuunada iyo nafaqa darrada marka ay indhahaagu qabtaan deegaanada ay saameysay abaartu ayaa waxaad markiiba arkaysaa meydadka xoolaha oo daadsan dhulka iyadoo ay xooluhu aanay haysan biyo iyo baad toona taasina ay sababtay inay dhintaan xooluhu hase ahaatee xisbiga mucaaradka wadani iyo xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa u muuqda kuwa cuduraadiisa oo iyagu ka qayb ah caawinta abaaraha Somaliland ayaa dadka oo darasa siyaasaddu waxay u badinayaan inay xisbiga mucaaradka wadani iyo xisbiga talada haya ee kulmiye ay yihiin laba xisbi oo cod ka raadinaya dadka reer Somaliland iyadoo labadani xisbi uu ka dhaxeeyo loolan siyaasadeed oo midba midka kale uu ka cabsi qabo inuu ka cod bato taasina ay sababto inuu xisbi walba dhankiisa diyaarsado ololaha siyaasadiisa ku aadan kasbashada dadka reer Somaliland oo ay labada xisbiba ka faa'iideysanayaan dadka ay abaaruhu halakeeyeen ee la ildaran tiifta iyo dihaalka abaarta taasoo ay ka rabaan inay qabtaan indhaha caalamku iyagoo waxaan dhaafsaneen quutal yoom isku sawiraya inay gargaar gaarsiinayaan dadka abaaraha ku tabaaloobay sidaasna ay ku helaan codka ay rabaan haddaba abaartani saameeyay dadka iyo xoolaha yaa mid ay la ildaran yihiin dadka oo aanay haysan hooy ay galaan oo ay kaga gabadaan kuleelka qoraxda ee maalintii iyo qabowga habeenkii gudiga abaaraha Somaliland ayaa la tacaalaya dadka ay abaaruhu halakeeyeen iyagoo isku dayaya inay caawimo gaarsiiyaan dadka abaaruhu haleeleen dadka ay abaaruhu haleeleen ayaa dad xoolo dhaqata kuwaas oo xoolahooda ka helayay waxay quutaan balse hadda ay dadkaasi ka dhamaadeen xoolihii ay haysteen iyadoo qof kasta oo ka naxaya dadka walaalahooda ay haleeleen abaaruhu ee aan haysan biyo iyo baad ay xoolahooda inta hadha ay cunaan inay ka qayb qaataan gacan weyn ka geystaan caawinta abaarahaasi waa Maxamed Axmed Muuse Maxamed Jeekere TV dadkeena markii tii la waayay taagtooduna si